نبينا صلى الله عليه وسلم وحيري أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها غرق الله عنها ستره gabadhii dhar dhigata ayadoon yani gurigeedii joogin ama gabadhii banaanka u soo baxaysa ayadoo dhar la Allah subhanahu wa ta'ala ayaa asturka ka qaadaya sida maanta aynu aragnay baraha bulshada inta badan gabdho fara badan oo waxa jira xijaabadii ka tagay dharkii iyo mariyii xooray maxay aheeday ugu dambeyntiina carada Allah subhanahu wa ta'ala markay ku badatayna fashil u dambeeyay soo maahan fashilka ayaga doortay oo gacantoodii isugu keenay waayo hadii ay xijaabka qaadan lahayn lama dhibaateen lahayn Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay ya ayuha an-nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dayn halkaas ayaan rabaa inaan dul istaago fala yu'dayn gabadha xijaaban lama dhibaateenayo dhibaato lama kulmayso example hadaan idin soo qaato maanta gabadha xijaaban ee halkaan fadhida iyo gabadha horaadkeedii muujisay dambeedkeedii muujisay dhaxda xiratay iyadoo rag ay meesha yani ay joogaan yaa la dhibaateynaya ninka ragga ah yuu damcaya asagoon guur yani markuu dhibaateynaya ama uu damcayo wuxuu uga baahan yahay guur maya xataa haddii ay tahay gabadhaas gabar dhoorsoon ee wanaagsan yani wuxuu aaminayaa inay tahay gabar aan yani wanaagsanayn oo ayada isa soo bandhigtay asagoo hamigiisa ay tahay gabadhan xijaaban haddii uu ilaahay calaf kugu dari lahaa nasiib baad lahaan lahayd tan kalena wuxuu rabaa inuu ku cayaaro ninka ragga ahna sidiisaba waa damac dumarkana ayaga ayaa fidnada iyo dhibaatada mar walba gacmahooda isugu soo jiida dumarkeena faraha badan ee maanta markii ay bateen inay u baxaan banaanka ay soo bandhigaan ayay dhibaatadiina ay badatay dumarkii hore waxay ahaayeen dumar guriyo joog ah haddii ay banaanka u baxayaan iyagoo xishoonaya dantoodii ay banaanka kale yihiin fulinaya laakiin haddeertaan wayba yar tahay gabar waqti xaadirkan la joogo iska taamaaline hadda haween 3 saac haweenimo guryahoodii tag hooyo walba gabadheedii guri ugu ma jirto meel ay jirto kaal aad sheeg 24 saac waxay wareegaysaa meelaha goobaha waxyaabaha lagu duubo waxay duubaysaa wax dadka ay ka nafcinayaan ma aha wax ayada dan ugu jira ma aha bal iska badaaye waa wax kalifaya ama qadaraya inay ku hoobato naarta wal ciyaadu billah nabigeena sallallahu alayhi wasallam markii uu inala dardaarmayay wuxuu yiri ya ma'shara an-nisaa tasaddaqna wa aksirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna akthar min ahli an-nar wuxuu yiri dumarow badiya istighfarta iyo sidoo kale sadaqadana ku dadaala sababtoo aniga waxaan idin arkay inaad tiin ehelka ugu badan ee naarta abaa waxaan ku weydiinayaa su'aal gabadha xijaabka ka tagtay ayaan la hadlayaa su'aasha ku weydiinaya ayaa waxay tahay asagoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam dardaarankaasi ugu dambeeyay uu ku siiyay sidee baad ugu dhiiratay inaad yani xijaabka aad xoorato marihi aad tuurato waxa lagu leeyahay waxaan arkay dumarkeena naarta ugu badan yihiin naartu ma wax ciyaar ahba iska badaa naarte dhimbil yar oo dab ka soo booday maanta korkaagii gaartay saa u gubanaysid waa aragtay soo maahan yani xanuunkeedaan xamili kareynin bal ka waran naar dhimbisheedii halkii dhimbil ay la facdahay yani gurigan oo kaleeto ma xamili karaysaa ma xamili karaysid soo maahan marka abaayo xijaabku Allah subhanahu wa ta'ala uu ku dooray waa wax adiga dan kugu jira waa wax adiga shaydaan iyo ibliis ka xijaabaya waa wax adiga ku hogaaminaya nafsad ahaantaada inaad noqoto gabar sharaf leh gabar hal door ah dadka ka dhex muuqata nin walba uu ku hamiya gabar walbana ay ku hamiso inay noqoto sideedoo kaleeto gabadha markii ay xijaaban tahay oo ay wanaagsan tahay waxa hagaagsanaanaya oo yani oo hagaagaya bulshadoo dhan haddii ay laakiin gabadhii xumaato bulshadii oo dhan waxay noqonaysaa bulsho wada fasahaadsan haddaan kuu sheegayaa wiil walbo maanta halkan fadhiya dooqiisu ma ahan gabar halkan fadhida ee xijaabkii ka tagtay dhexda xirib ku soo xiratay xabadkeedii muujisay dambeedkeedii muujisay bilaa xishood ah halkan ka qoslaysa ka qeylinaysa meel bandhig iyo maxay ahaydee waxyaabo qaar lagu sheegay inay u soo socotana og haddana soo dhar dhigatay nin walbo halkan joogo dooqiisa ma aha ma beentay baa taas waa maya laakiin gabar walbo asturan nin walbo raga wuxuu ku haminayaa iyadoo kaleeto inuu helo example had hal wiil ayaa rabaa halkan inuu imaado su'aal yar rabaa inaan weydiiyo su'aasha wiilkan weydiinaya waxay tahay dhamaantiina waad u jeedaan soo maahan waxaan gacanta ku hayaa waa laba ninacani aad arkaysaan wax qub ah ma lahan ninacani sidoo kaleeto waa ninac cusub marka wiilkan joyskiisa ayaan rabaa inaan ogaado
haddii aan labada dhinac ku khiyaar geliyo mid uun qaado ku dhaho midkeen nafsad ahaantaada aad damci leed adiga kii xijaabna ayuu qaatay ama kii yacni dhinacii qubka lahaa soo maahan waxaan weydiin doonaa sababta uu ku qaatay marka su-aasheeda waa taa sababtu way iska caddahay tusaalaha ugu dhow hadda nacnacan waxaa la mida cunto daboolan iyo cunto aan daboolnayn markii lagu soo agdhigo mar walba niyadaadu waxa ay rabtaa midda daboolan sababtuna waxay tahay midaan aan daboolnayn ee afkala bakteriyo bahallo waxaasoo dhan aa ku jira gabadha aan xijaabnayn marka ee qaawan waxa ay la mid tahay bannaankaasee taallaa badeecadii aniga igu ekayd waa layla leeyahay tusaalaha ugu dhow sidoo kale ilbila aadanna way xambaarsantaho habeenkii guriga tagta dagaalaa kaaga sii horreeya marka mar walbaba xijaabku waa waxaan ku dhiirigelinayno nin kastana gabadha xijaabanuu rabaa ninka saaqidka ee koolada cabaya ee derbiga fadhiya markaa tiri ayaa guursanaysaa nin oo gabar dhowrsanaa rabaa oo ku leeyahay midaan kaleetana magaalo ku joog waayo aad waa maasantaa walaashay waa aragteen soo maaha natiijada soo marka gabdho asturka iyo xijaabka ayaad yacni sharaf ku leedihiin cizi ku leedihiin qisada uu sheegay qiso yar kaleeto oo yacni cuntada ku soo xasuustay waxaa jirtay gabar iyo aabaheed baa maalin maalmaha ka mid ah waxay isku soo raaceen meel maqaayad ah sidoo kale aabihii baa yacni wuxuu dalbay cuno wuxuu yidhi 2 saxan oo cunaha lay keeno labadii saxan oo cunada la keenay gabadhi dalabkeedii marka laga qaaday iyo sidoo kale aabihii dalabkeeda isku daaq maynan noqonin waxaa la keenay cunadii ayaa la soo hordhigay gabadhi 2 saxan ee la soo hordhigay waxay ahaayeen saxan daboolan iyo saxan oo cunto ku jira laakiin aanan daboolnayn gabadhii waxay durbadiiba ay ku booday iyadoo arkaysa dooqeeda iyo waxay iyadu dalbatay saxankii daboolna ayay aaday aabaheed ayaa weydiiyey maxaad ku dooratay markaas waxay tiri mar walba wax daboolan ayaa nafta uran sidoo kale wuxuu yiri adigana waligaa xijaabno xijaabka ha ka tagin markaas baad nafta u roonaaniye soo marka waxaan idin leeyahay xijaabka ayaad qiimo iyo sharaf ku leedihiin allaha naga dhigo gabdho adduun iyo aakhiraba asturan insha allah sidoo kale waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dhammaan bahda guryasamo ayagoo isku duuban marti sharafta iyo walaalahayga dhammaan oo halkan kasoo qayb galay sidoo kaleeto waxaan mahadcelin aad u weyn halkan uga jeedinayaa anigoona kusii daahaynin walaalahayga qoray buugani quruxda badan ayagoo isku duuban zawjada iyo zawjkeedaba waxaan idin leeyahay horumar wacan ummadda Soomaaliyeed ayaad u tihiin tusaale hagaagsan idinkoo badanna Allah inoo badiyo insha Allah idinkoo kalena Allah inoo badiyo insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.